waxaan aragnaa maanta war-saxaafadeed ay soo kala saareen laba group oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya groupna ay taageerayeen soo dhaweyntii xudur Etoobiyaanka inuu dalka sii joogo iyo group kale oo ka soo horjeedo runtii horta waxyaabaha qaarkood waa wax sharciyan ma taqaana u qaldan waxna waa waxyaabo qaarkood in laga doodaba aysan ahayn يا صحن يا قلدن مرة ما دهنا لكن سبحان كهلنا حلبانا ذا بارلمان كفدرالك الصومالية هو حلبانو كل شقية عن شورته ومدى عن الشعب كالصومالية وحين هالكاس كومتلان ومدى الصوماليات مركا وح الله لوحي طلابة أي قاضيان شرعيا يتهاجر النوع دون طبها هاتي ووح لقول حساب تمام مركا وح سؤال شيء تهي xildhibaano maanta taageeraya Ethiopia oo ku dhawaaqday bishii January koodeedii inay qaadanayso qayb kamid ah Soomaaliya iyo bad kamid ah Soomaaliya maadaama aan waxay yiraahdeen aan nahay dal landlocked waxa la yiraahdaa dhul xiran oo aan bad lahayn waxaan ku qasbanahay no matter what hook by hook and crook inaan bad helno waxaan ka qaadanaynaa Soomaaliya waxay heshiis qaldan la galeen Somaliland وأن أجنهي وكترسن دولة الفدرالية الصومالية ومعمول أولي الأقونسن لكن يقولوا إزتاك سمية ما ملا بدنا أدون كأي سيدة سمية إلا هذا كوكا وين وبحاجر عن عالم كأقونسن أنت بدنا تايوان يجوه الرئيسو مركز لكن سو حاسو عشاء تهي إن حل بعنا ذا ما أنت واحد تاجر أيان يسجرنين this is what reason واحد يراد واقعيان قرن حل بان tax bearku umada Soomaaliyeed ku shaqeeya runtii maanta waxa waa taageeraya Ethiopia taas waxayna tusaysaa in Ethiopia ay soddokii sano ee dalkeena u burbursanaa ay shaqaysatay oo ay nagu dhex abuuratay dad iyaga u shaqeeya haddii baarlamaan noqoto haddii ciidamada noqoto haddii ay meel walba noqoto shabaabka wax maanta waxa waaye hubka iyo saanada iyo dakhliga iyo wax walba waxa waaye ku taageeranay iyaga marka soddonkii sano isku mashquulsaneen dagaalada sokeeye aan la daadala dhacaynay waa ay shaqaysatay Ethiopia ha shaqaysatay ma xuma laakiinse waxa wax lala yaaba ah in xildhibaano dhowr ah oo mid iyo laba aanan ahayn oo ay tahay markii labaad waliba arrintan oo bar cad ay la soo istaageen oo ay ku taageerayaan ma taqaanaa wax la yiraahdo qiyaano qaran waxa la yaaba in waxa waa si qaldan hub Ethiopia lagu soo geliyay ay ku taageereen in waxa waa maanta shacab masaakiin ee dhibaataysan ee runtii waxa waa cabsi ay ka muuqato wajiyadooda marna shabaab ka baqay marna Ethiopia daris lahay ka baqayeen habeenkii guryahooda loo soo dhaco lagala baxo warqado been inta loo qeybshay iyo skiin waxa waa ma taqaanaa maanta gudoomiye ka ah runtii asiga laftirkiisa meesha lagu abuurtay cabsanaya mushaharkiisii la bixiyo meel xuduud runtii waxa waa border ah ku yaalo waa garan karnaa laakiin waxa yaab leh in xildhibaano qaran ee federaalka Soomaaliya maanta runtii waxa waa dal xor ku nool meel xor joogan cabsi aysan ku jirin inay barcad la soo istaagaan ummadda Soomaaliyeed hortooda ay ka sheegaan inay maanta waxa waa wixii xudur ka dhacay ay ku taageersan yihiin in diyaar u yihiin inay Ethiopia dalkooda sii joogto kula tilmaamay in dawladda maanta waxa waa ay heshiis qaldan la soo gasay mashar taas wax qaldan ma aha Soomaaliya dalad dawladaha hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay waxbay la dhacday waxa ayaanta dawladda Ethiopia intaas Soomaaliya waa xor ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhax aragto cid kasta oo danta Soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodan fulinayna cidii aan danaheena ka soo horjeedana danaheedan ka soo horjeesanayna maba shakina nooga ma jiro dawladda Ethiopia markale waxaan leenahay darisaan nahay ismaanaan dooran idinkuna nama dooran annagana idama dooran darisaan nahay xuduudda ugu dheer ee iyagu ay leeyihiin annaguna aan leenahay xaq dhowridaan isku leenahay aan is xaq dhowrno boogihii shalay ee bogsaday yaan dib loo xoqin oo laga dhiijinin aan leenahay in laga qaado markii tan runtii waxa waa dad tax bear ku shaqeey ma dad iskiis u hadlo kale meel inta soo istaaga social media waxa waa qabiil iyo dawladii wixii la doon iska caynay ugu shuba ma ahan waa nin xildhibaan federaal waa nin matala dad iyo dal qofkaas oo kale qaladku u galo waa waxyaabaha ma taqaanaa caalamka waxa waa ama xabsi daa'in meelaha aysan dil toogasho aysan ka jirin
كل عدوى هدينين ملتري وأهلا ما أنت وحوا برتيس اللي توجل لها ما أنت وحوا وشعب كيسي أما عيدن كي وللسعودية ودورك كتوجل وكتوجت وإسباع يكون نقضه مركا إثيوبيا وايش قيستي سوين أي نوع شقيستي لكن زين بعتمر لك وحاس أشياء أي تهي حلوان هذا ما أنت ماشي سوء استاجي محا لقي يري كران